حاجة مجرى يعني واحد ايش اللي قبضتين حاجة وادقيسة وويتقي marka anaga soo ajnabi madana soo maya ajnabi hadda ajnabi dhalinyarada galaan oo Soomaaliyeed crime-ka galaan ma dambiyo la socdo drugs miya mise dambiyo oo xatooyo miya dambiyo dagaal ba maxaa ugu wacan criminality-ka galaan waxa ugu wacan base-keena daciifa waxa naga burburay qoyskii waa burburay ma garanaysaa hadda Afrikaanka marka loo eego iyo caalamka Islaamka inta waa ka horeeyna farriinka iyo familka burburay marka dhinacaas waa meelaha nisbarada isku xirkeena oo wali aan yani community-da ururada lagu talagalay inay gacan fiican ka geystaan waalidkooda doorkoodii aan wada sameeynin waalidkooda iska liita yani hooyo kaliya badan carruurta waagii la soo gali jiray hooyo kaliya ama hooyo badan waa yani reerku waa burburay ama dar alle u tahay yani ragga dagaaladii ku soo dhamaaday ama kaligeed ba soo gashay marka waxa far badan runtii abaal weyn waxaan u hayaa hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed yani la'aantood waxna warantaa hooyo kaligeed korinayso waxa uu wacnaan kartaa xataa aabihii oo sawirka ka maqan aabihii markay kala tagaan xaaskiisa carruurtii uu iimaaneen uu leeyahay dawladda ku korinayso markaasna hooyo kaligeed oo 5-6 ilmood hayso nolosha taf way marka maxaa aabihii Soomaaliga uu xataa waxa la barbardhigay ninka Black Americans masuul ma qaadaalay ninka madow inuu ilmihiisa daryeelo waxyaabaha hadda boogta soo saaro waxay ku silaysan tahay falsafada isdiriska war haddii afkiina aydan yani daryeelin oo carruurtiina aydan baran afkiina iyo dhaqankiina iyo diintiina iyo caadadkiina waxaa noqonaysaa sida dadka Mareykanka madow oo kale ay noqonaysaa marka qof aan identity lahayn baa noqonaysaa marka dhinacaas ayto waxa badan for building abi meesha yani ka maqan sawirka ka ama qoysku adumay ama markii horeba maartay waxa weyn dagaaladii ku dhintay marka adigu culayska xoog weyn kale wuxuu ku dhacaa maartay hooyooyinka and I'm proud of them yani xoog yani gabdhaha Soomaaliyeed ay galiyaan runtu waxaad lagu farxaa weyn abaal gudi kara wadankan Sweden baad ku aragtay hooyooyin far badan oo single ah carruurta korsanayo isla markeena dhibaatooyinka dambiyada hadda crime-ka aad baad Sweden ugu soo baday dhalinyaradii Soomaalida ahayd iyo dhalinyarada ajnabiga oo waxay dareensan in xogaa suuqa shaqada ay haysan xaafada ajnabi ay degan yihiin marka loo fiiriyo Canada oo kale oo dadka dhan wada ajnabi yihiin laakiin qof kasta waa inuu rootigiisa u dagaalamay tahay moogtay marka runtii arrimaha bulshada wax taabanayo Soomaalida meel kasta ay joogto Australia joogan dhinaca waxbarashada xataa inay ka liitaan Ingiriiska xataa ku joogo taas waa crisis culus runtii waxbarashada Canada iyo Mareykanka يعني مستقبل في عمل عروض سوماليد إلى ذهين هذا أكون شيء جامعة وينزر اللي هذا اللي في هذا البرنامج إلا كن أرضي بان أمانة تركب سميني صح أيام معرتي إن أنفيلنا دوان مركا إن ماشي اللي طبعا متهجنين لكن ذلك أقول عصبنا هيدا أنت أبى ما وقتها هي مركا أفريقيا كان نلوى إيجو أنا أقول رون إذا عذان لأن هي تلفزيون سبان لأن هي بيزنس دي الركوة أركتين أروس جد مارتي يعني يسويلن مارتي وحملنا كنا لقاكم كله السيستم كذا رعنا مركا وحياة رمضان أو حاجة يعني الحاجة يكون أحسن تهي مارتي رنتي أو هركع قفك صح فري انتربرايز ماشي يعني مجرى إسبار كحيرايا يعني وأنت شغين كرتوا ولا فراورس شغين كرتوا labada nololood ani kulay waxaan yani aan jecelahay midaan Scandinavian-ka iska degan organized-ka lagu leeyahay waxa saartay organized-ka tartiib oo socota qoyo socodka xagga waxa marka qofka business-ka xagga u roonaya qofkii marka ganacsi iyo waxa sita meel iska guuxayo dhinacaas weeye dhinaca maartay waxa weeye runtii yani haduu tartamayo oo yani qowmiyadka sita iyo sheeyta kala tartami karo waa dhinacaas aan xaggaas ku raan dadka iska masaakiinta ahna dadka masaakiinta waxaa halkan loo qabtay sida guriyahana ku jirtaan iyo dhaqaalahan iyo gargaarkan iyo kaalmadan xagga martay aan soo noqonaa maxamed sheekh xasan waxa inala joogo maxamed sheekh xasan studio-da aniga Cabdiqaadir Salwa barnaamijka daadahayna hadda dhinaca buugaagta aan soo galayna ee gabayada Soomaalida aan soo galayna hadda gacantaada waxa ku haysaa buug la gurmad ayaysa buugga nooga shaki gormaad qortay محونا قبيلة سوماليات نوش شكي إن قبيلة إن قرمد وسلسلة يعني إن لحبوك ولو هذا اللحبة مرنا ويسوعتها قرمد نوع وحوها يعني سوقانتي سوماليات بلو قرمد بوها
marka ilaa lix boqol oo gabe wax yar dhiman 570 meelahaas weeye waa 6 cadad isdaba socda oo ay tiriyeen 200 abwaan 200 sano ugu dambeeyay wixii markaa aan ka ururin karo marka markii aan 80 ilaa 70 gabe isla helaba buugana kala ka daawaca kan hadda marka cadadkii shanaad weeye kan waa kii saddexaad kow iyo laba iyo saas yani ayaa jira marka wax yar waxaan jecelahay bal gabayada inaan yani aan ka warramo gabayada Soomaaliyeed meelaha godadka laga gabiyo waxaa kamid ah horta maansadu waxay u kala baxdaa dhowr qaybo fara badan waxaa kamid ah gabay waxaa kamid ah geeraar waxaa kamid ah masafo waxaa kamid ah jiifto waxaa kamid ah guurow heelo wiglo iyo buraambar oo ah gabayga dumarka meelaha laga gabiyo ninba takhasus buu leeyahay qaar baa waxaa kamid ah ammaanta waxaa kamid ah cayda waxaa kamid ah faanka waxaa kamid ah digashada waxaa kamid ah diradiraha waxaa kamid ah calaacalka guubaabada waanada murtida halxiraalaha kaftanka jacaylka iyo qayb fara badan marka waa takhasus oo kale moogtay yani ninba meel ku takhasusiya nin waxaa jira yani meel walba ka gabiyo oo la yidhaha folk poet waxaa kamid ahaa allah yarxam ninka la oran jiray ismaaciil mire waxaa kamid ahaa qaasim waxaa kamid ahaa cali cilmi afire raggaas waxaa la yidhahda folk poets bad walba waa ka gabiya nin wuxuu ku takhasusaya calaacalka keliya raa-ugaas oo kale calaacalka ayuu yani ku takhasusaa nin xikmadu ka gabiya nin wuxuu ka gabiyaa jacaylka keliya saas oo kale ayaa marka waxaan soo qaadanaynaa markaa intixayar oo kooban arrintaas waxaa si fiican u tilmaamay allah yarxamo abwaankii weynaa ibraahim sheekh salaman garle reer jabuuti maruu yani ka hadlayay wuxuu yidhi maansoy nin kugu duul nina maalin kugu dood nina dhowri kaa doon nina darajo kaa dhigay nina nabarka kugu damaq nina dakharka kugu dhayay nina doogta kugu kici nina olol kugu dami nina nabadda kugu didi nina belada kugu dadab saas oo kale ma garanaysa ayaan markuu ismaamayo dhaqankeena gabayada waxaa copyrightka waxaa la yidhahda aad baa loo ixtiraamaa oo gabayada ninka haddii aad masalan rashiid uu rabo inuu soo qaato tix gabay ah wuxuu leeyahay tixdaa waxaan kasoo xigtay abwaan hebel baa iska lahaa iskama qaato marka copyrightka yani oralka aad ayaa loo ixtiraamaa tixayar kama gaaro wax inaan gabay badan akhriyo laakiin tixayar baan xogaa godadkaasi tilmaamay hadda aan soo sheegnay baan soo qaadanayaa gabayga sidiisaba marka la gabayo sabab waa inay jirtaa haddii kale gabay macno ma yeelanayo waxa uu daliila tixdan aan kasoo xigtay abwaankii cali xuseen haddaan gabaygu uurkoo bukiyo arami kaa keenin amaan olol xaluul iyo jacayn kugu ikbaaraynin afkuun baad ka leedahee tixuhu arar ma yeeshaan yani waa inay jirtaa sabab keentay in la coriyo gabay cabdullaahi dhowdaan iyo sidoo kale bahashan waa xikmad ilaahay weeye aadan carab allah yarxamuhu oo kamid ahaa abwaaninta ugu waaweynaa ee waa dhiman jira Soomaaliyeed wuxuu yidhi maruu tilmaamayay oo la yidhi waxna balka yani see wax u celisaa amba kama muhoobin tolkay maansada badane masar iyo kharduunna uma tegin mana masaafoone kamana mudan sheekh ii marshaa oo macrifo i dheere waan mihindisaye iima dhigin macallin yeershaaye waa shay maqaadiir ku yimid aan yar maamulay cabdullaahi dhowdaan abtigiisu maruu ka hadlayay wuxuu yidhi darsi ma aha laysbaro xikmadu way da-weyn tahaye war waa deeq ilaah baxshiya doobir goonihe yani waa haybad ilaahay siiyey waxaan garanaya waxaan dabagabeedan aan daabacay 500 ah hal nin baa ku jira oo PhD holder ah gabaygiisa ayaa ugu liita quality marka ragga nomadic ah geeliraha weeye marka nimanka baarka aad u yaqaanay ma garanaysa hatta groupkan dambe mutacalimiinta ahaa waayaan dambe jaamacadaha yani kasoo bixiyay silsiladii jiifsada farabna siin lay iyo deen lay iyo waxaas iyo tiitrin jiray waxaa ka xoog weyn gabadha qoso nimanka ramiyiga ah ee geel la joogay waligood maartay aan waxba ilaahay siiyay talent leadership yani kun taxayar baan soo qaadanayaa waxaa kamid ahaa nin xooray maantaan xumaa aniga oo xaasa ku xiltiray xanaano iyo wanaag aniga oo xoog leh maxamed cali beenaley ayuu ahaa maartay yani tixtaasiita waxaad cuni asaan ee bahay kaaga calaf yeelin oo aadan cayaar kaga dhargeenin waa cajaba sheega waa godka halxiraalaha marka yani laga hadlayo culimadiina damac baa milgoo mooyisay tahaye miladiyo shareecada barbaa maal ku iibsadaye marsiis iyo madiidu ku dhacay magana diinkiye اسمه يوسف كنديد الله يرحمه يعني حكمة iyo falsafada iyo aad yani ugu dagaalkii labada adduunyada markuu socday 19.5kii waana farbin Soomaaliya gabiye tixdan mid waxa kamid in la yiraahdo Faarax Ilmi Geyd wuxuu yiri
dayuuraduhu goortay qubaan qalabka loo dhiibay madaafiicda qowdhabi markay qaraxa dayn weydo ma qarsoona meeshaas inuu qiiq ka karayaaye wallee labada qolo meelunbaa qaadan reeryada yani wuxuu jeegaa hawdkii la socdaa yani si dagaalka ay maaratay yani ay u dhaxaysay cilmi carab tixdan macaan baan kasoo qaatay caruur badan adoo dhalay hadduu moodku qaar celiyo beer waa cajaayib hadduu jiilku cadanyeedo calooshaada geli niman ciro leh yaan waqood curane moodku carruurta kaga qaado yani nin aan weligiis ilahay wax siin baa jira naf yahay baxaysaa intaan adiga kuu booyi baasaha dhacayo haddaa baaji kara mawdka taydan bilaad laga koriya gelin lahaa buure maxamed cali beenaley maaratay uu leeyahay yani wax kasta waa maqaadiirta ma garanaysaa jacaylka kale